السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصحابتي ku xiran channelka marka la soo dhawaada aad iyo aad u mahadsantihiin muuqaalkan maanta waxaan rabaa inaan idinku la wadaago mid ka mid ah Soomaalidii ku eedeysnayd kiiskii Feeding Our Future oo dambigaasi horey loogu helay 28 sanana lagu xukumay sanadkii hore ayaa shalay 10 sano oo dheeraad ah loo raaciyay haddaba maxay tahay dambiga kale oo uu galay qofkaasi horey loo xukumay oo uu qirtay isla markaana shalay 10 sano oo kale loo xukumay ninkii Soomaaliga ah oo aan ognahay dadkii lagu soo eedeeyay kiiskii musuqmaasuqa ee Medicaid-ka gaar ahaan qaybta dadka guryaha loogu raadinayay oo darbiga ka soo booday bishii May ee shanaad si uu ciidamada uga baxsado ayaa shalay maxkamad la hor keenay dambigiisana waa uu qirtay arintaasina waan idinla wadaagaya nin Ethiopian ah oo isniintii galinkii dambe magaalada St Paul ee gobolka Minnesota ku dilay 3 qof oo ka shaqeynayay xafiiska guryaha uu deganaa sababta uu u dilayna maxay tahay markii uu baxsadayna halkee laga soo qabtay ninkaasina waan idinla wadaagaya ninkii cadaanka ahaa ee sanadkii hore xildhibaanad ka tirsan baarlamaanka gobolka Minnesota iyo saygeeda dilay senator iyo xaaskiisana dhaawacay bishii la soo dhaafayna dambigiisa qirtay oo maanta la xukumay haddaba ninkaasi cadaanka ah imisa lagu xukumay sidoo kale waan idinla wadaagaya haddii aan ku bilaabo Cabdicasiis Faarax oo 37 jir ah waxa uu ka mid ahaa 7 qof ee ugu horeysay ee kiiskii Feeding Our Future loo maxkamadeeyo horaantii sanadkii 2025 7daasi qof 5 ka mid ah ayaa dambi lagu helay labana waa lagu waayay marka Cabdicasiis dambiyo waxa lagu helay 24 dambi ayaa lagu soo eedeeyay marka dambiyadaasi xukunkoodii waxa la xukumay bishii Agosto 6deedii sanadkii 2025 ayaa 28 sano oo xabsi ah lagu xukumay laakiin waxa jirtay Cabdicasiis iyo 7 qof oo la eedeysnayd markii kiiskooda horaantii sanadkii 2025 uu 6 toddobaad maxkamaddu ay socotay xeerbeegtina ay dhageysanayeen markii kiiska xeerbeegtida gacanta loo galiyay oo laga sugayay inay go'aan ka soo saaraan dadkan dambi ay leeyihiin amaba dambi malahan ah in Cabdicasiis iyo 4 qof oo kale ay isku dayeen in mid ka mid ah xeerbeegtida la laaluusho waxaan ognahay xeerbeegtidu 12 qof waaye mid ka mid ah hadduu yiraahdo dadkan dambi malahan sidaasi ayay dambi la'aan ku noqonayaan waa in 12 qof ay isku raacaan marka mid ka mid ah inay laaluushaan ay isku dayeen xeerbeegtida magacooda lama sheego laakiin nambarkiisu waxa uu ahaa 52 xeerbeegtidaasi waxayna ahayd qofka kaliya ee madowga ah ee ku jiray 12 qof ee kiiskaasi 7 qof ee Soomaalida loo haystay dhageysanayay marka way ilaaleysteen maxkamadda markii ay ka bixisay gaarigeeda daba galeen gurigeeda ayay soo ogaadeen markaas kadib gabar Soomaali ah ayaa waxa laga soo shaqaaleysiiyay Seattle Washington oo ladan Maxamed Cali la yiraahdo si ay xeerbeegtidaasi ay lacagta ugu geyso lacagtana waxa isku soo duway Cabdicasiis walaalkiis Saciid iyo Cabdimajiid Maxamed Nuur saddexdaasiba waxay ka mid ahaayeen dadka kiiskooda ay xeerbeegtidu go'aanka ka gaarayeen laakiin waxa ku soo biiray oo gabadhan Soomaalida ah inay lacagta u geysay xeerbeegtida ka caawinayay Cabdulkariim Faarax oo isagu walaal la ah Saciid iyo Cabdicasiis marka shantaasi qof ayaa waxa lagu helay in kiiskaasi laaluushka xeerbeegtida ay gacan ku lahaayeen oo ay soo abaabuleen marka Cabdicasiis waxa uu qirtay kiiskaasi laaluushka inuu ku lug lahaa bishii June ee sanadkii 2025 shalay ayaa marka xukunkiisa uu ahaa horey 28 sano oo dambigii lagu helay musuqmaasuqii kiiskii Feeding Our Future ayaa loogu xukumay bishii Agosto 6deedii sanadkii 2025 shalay marka maadaama uu laaluushkaasi u geynta xeerbeegtidaasi $120,000 waliba lacagtu $200,000 ay ahayd gabadha ladan ayaa $80,000 reebatay oo $120,000 ay xeerbeegtida u geysay xeerbeegtidiina markii ay aragtay waliba guriga waa ay ka maqnayd markii ay soo laabatayna booliska ay wacday waxay tiri boorsadan oo lacagtan ku jirta ayaa la ii keenay mana aqaano waxa ay tahay waliba qoraal ayaa la socday oo la leeyahay haddii aad not guilty aad tiraado lacagtan ka badan ayaa lagu siinaya marka shalay ayaa xukunka Cabdicasiis marka kiiska laaluushka maxkamadda loo keenay waliba Cabdicasiis waxa la leeyahay da ayaa ka muuqatay
xoogaa waa uu ciraystay weliba xaaskiisa iyo caruurtiisana maxkamadda ayay shalay joogeen marka garsooraha cabdicasiis xukumayay magaciisa waxaa la yidhahdaa Eric Tostad ayaa la yidhahdaa ka hor inta uusan xukunkiisa dhicin ayaa cabdicasiis muddo 10 daqiiqo ah uu maxkamadda ka hor hadlay waxaana raaligelin uu siiyey xeerbeegtidii uu isku dayay inuu laaluusho oo nambarkeedu 52 ahaa dacwadoogayaashii sanadkii 2025 dacwadooda maxkamadda hor keenay iyo weliba garsoorihii maxkamadaasi kiiskooda uu ka socday oo Nancy Brassel la yiraahdo cabdicasiis marka waxa uu yiri maalin kasta waan ka shalayaa ayuu yiri waxa aan sameeyay waxaanan si xushmad leh aan u weydiisanayaa dhammaanba dadkaasi in ay raaligelintayda ay qadariyaan ama ay tixgeliyaan laakiin garsoore Eric Tostad arrintaasi ma uusan dhageysan waxaana horta uu ku tilmaamay tilaabadii xeerbeegtidu ay qaaday mid geesinimo ah inay ahayd laakiin dambiga cabdicasiis iyo dadka la socday laaluushka isku dayeen xeerbeegtida inay laaluushaan waxa ay ku tilmaameen uu garsooruhu ku tilmaamay in ay tahay inuu ahaa weerar abaabulan oo lagu soo qaaday systemka cadaaladda ama habka cadaaladda ee gobolka Minnesota iyadoo sidoo kalena dacwadoogayaasha shalay sidoo kale arrintan maxkamadda keenana ay yiraahdeen arrintaasi waxa ay saameyn ku yeelatay xulista xeerbeegtida maadaama arrin laaluusha ay meesha soo gashay waxaana ay ku tilmaameen inuu yahay weerar lagu soo qaaday systemka cadaaladda ee gobolka Minnesota marka cabdicasiis la 28 sano horey loogu xukumay iyo 10 sano 38 sano ayay isku noqonaysaa maadaama 37 jir uu yahay isagoo 80 ku dhow ayuu xabsiga uu ka soo bixi doona dhinaca kale ninkan Maxamed Cabduqaadir Cumar oo 32 jir ah waa ninkii 21 bishii shanaad ee May markii lagu soo eedeeyay musuqmaasuq barnaamijkii Medicaid-ka oo dadka guryaha loogu raadinayay dadka baahiyaha gaarka qabo dadka daraagiska laga dhaqayo dadka guryo la'aanta in ay musuqmaasuqeen markii la isku dayay in la soo qabtana waa kii darbiga 4 dabaqa intuu ka soo booday dhulka ku soo dhacay lug dhaawac uu ka gaaray isla markaana isagoo halka gashan midna gacanta ku wata oo hintinaya isagoo baxsanaya ay kaamirooyinku qabteen saacada kadibna la soo qabtay ilaa iyo markii xabsi ayuu ku jiray Maxamed Cumar shalay ayaa isagoo wheelchair lagu wado weli dhaawacii aan ka soo kaban oo lagu riixayo maxkamadda federaalka la keenay dambigiisana waa uu qirtay Maxamed Cumar waxa lagu eedeynayay in ka badan 3.2 milyan oo dollar inuu musuqmaasuqay laba company ayuu lahaa oo la kala yiraahdo North Home Healthcare LLC iyo South Home Healthcare LLC waxaana sidoo kale lagu haystaa Maxamed Cabduqaadir Cumar in lacag fara badan uu u xawilay dalka Kenya si uu guryo ugu iibsado mar 6 milyan oo Kenya shilina marna 3 milyan oo Kenya shilina sidoo kale waxyaabaha dacwadoogayaashu ay soo bandhigeen waxa kamid ah in muddo 4 bilood qof dhintay ay lacag ku qaadanayeen oo ay dhahayeen qofkan guri ayaan u raadinaynaa ama guri ayaan u helnay waxyaabaha lagu helay ayay kamid tahay lagu soo eedeeyay marka garsooraha ayaa sidoo kale inta sano oo lagu xukumayo iyo xilliga la xukumayo go'aan ka gaari doona arrintaasina halkaas daan ka gudbo waxaa jirtay in isniintii galinkii dambe magaalada St Paul ee gobolka Minnesota in nin Ethiopian oo magaciisa la yiraahdo Sagab Benesi oo 30 jir ah uu 3 qof oo ka shaqeynayay xafiiska guriga uu deganaa in uu dilay ninkan arrin la yaab leh ayuu sameeyay hor 3 qof uu dilay da'doodu waxay kala ahaayeen 25 43 56 waa sawirada 3 qof aad arkaysaan Inver Grove Heights Oakdale iyo St Paul ayayna kasoo kala jeedeen marka ninkan la yiraahdo Sagab Benesi waxa uu yiri waxaan doonayay militariga inaan ku beero sida darteed gaarigaygii ayaan iibiyay marka guryaha qaarkood waxa jirta qofku baakinka halka gaarigiisa uu dhiganayo habeenkii marka uu shaqada iyo ka yimaado waa lacag ayuu ka bixiyaa waa uu saxiixaa contract sanadkiiba marka wuxuu yiri maadaama gaarigaygii aan iibiyay oo militariga aan ku beeray waxaan rabaa contractigaas in la iga cancelo marka shaqaalihii xafiiska waxay yiraahdeen telefoon ayuu markaasi kala hadlayay waxay yiraahdeen arrintu sidaas uma shaqayso contractigu marka uu ku dhamaado kadib ayaad iska canceli kartaa ninka waa uu xanaaqay bistoolad u sharciyeysan ayuu watay xafiiskii ayuu tagay 3 qof oo joogtay ayuu goobtii ku dilay waliba kaamirooyinka xafiiska ayaa qabtay marka kaamirooyinka waxa ay qabteen in 2 qof oo kamid ah min 6 xabadood isagoo ku dhufanaya kaamirooyinka ayaa qabtay qofka kale kaamiradu ma aysan qaban laakiin kaamirada ayaa waxa laga maqlayay qaylada iyo in 4 xabadood ay dhacday marka ninkan bistooladii uu watay qasnadii waa uu ku faarujiyay kadibna mid kamid ah dadkii uu dilay gaarigiisa intuu qaatay
ayuu baxsaday waxaana laga soo qabtay Virginia Minnesota oo 100 mayl jirta markii ay soo qabteen marka baarayaasha waxa uu yiri waa ay jirtaa in aan xafiiska tagay oo aan dalbanayay in la iga kansalo baakinka contractigiisa laakiin wixii xafiiska ka dhacay ma uusan sheegin sidaas darteed dacwado dil ah oo 3 qof ah ayaa lagu soo oogay haddana xabsi ayuu ku jiraa halkii uu doonayay inuu military ku biiro xabsi ayuu hadda dhex fadhiyaa markii la soo qabanaya marka ninkan waxa uu watay baasaboorkiisii social securitykiisii sidoo kalena ogolaashaha bastooladii oo u sharciyeysnayd waliba qasnaduna ay faaruq tahay oo uu ku soo faarujiyay 3 qof oo uu dilay waxaana uu watay sidoo kalena boomo gaduudan iyo shaati ayuu watay ninkan waxa uu sidoo kale baarayaasha uu u sheegay in muddo 7 sano uu isku dayay qoyskiisa oo Itoobiya joogay inuu Mareykanka keeno laakiin aysan u suuragelin taasina ay sababtay xaaskiisii inay kala tagaan marka waxa uu yiri waxa la igu bartilmaameedsanaya inaan ahay qof madow ah ama soo galooti ah laakiin ninkaasi hadda xabsi ayuu ku jiraa ugu dambeyntii ninkii cadaanka ah ee sanadkii hore dilay xildhibaanad ka tirsaneyd baarlamaanka gobolka Minnesota waliba saygeedii Melissa Horman iyo Mark isla markaana dhaawacay senator John Hoffman iyo xaaskiisa Yifed xilli habeenana gurigooda ugu tagay isagoo boolis iska dhigaya isla markaana gaari boolis wata nalalkii ay u shidan yihiin isaguna dharkii wata nal wata baajkii booliska wata maskaraati soo gashtay waliba gaariga booliska watayna targidiisu ay boolis ahayd ayuu dhowr xildhibaan guryahooda tagay qaar uu ka soo waayay qaarna waa laga furi waayay laakiin senatorkan iyo xildhibaanatan guryahooda waa laga furay kadibna kuwana waa uu dhaawacay inuu dilay ayuu u maleynayay waliba gabadhooda oo joogtay ayay isku kortuureen si gabadhooda aysan waxba u gaarin ayagoo ay dhaawacmeen hadda waa ay ka badbaadeen laakiin waxaa dhintay Melissa Horman oo xildhibaanad waliba mar afhayeenka aqalka wakiilada ee baarlamaanka gobolka Minnesota noqotay iyo waliba saygeeda Mark eygoodoni waa uu dilay ninkan kadibna waa uu baxsaday 40 saacadood kadib markii la raadinayay waliba baaritaankii u ballaarnaa ee gobolka Minnesota qof la raadiyo oo ciidamo kala duwan ay ka qayb qaateen ayaa meel beeraley ah markii dambe laga soo qabtay ninkan marka bishii hore ayuu dambigiisa qirtay maanta ayaa marka xukunkiisa ahayd ninkan waxaa lagu xukumay marka 2 xabsi daa'in ama madaxaha ku furto ah oo waliba cafis aan lahayn ninkan hadda waa 59 jir marka waxay noqonaysaa inuu xabsiga ku dhinto uusan weligii ka soo baxayn cafisna maba loo fidin karaba 40 sanana waa loo raaciyay waliba ninkan hub fara badan ayaa gurigiisa laga soo helay markii baaritaanka lagu sameeyay marka Vance Bolter oo xildhibaanadaasi dilay iyo ninkeeda isla markaana senator John Hoffman iyo xaaskiisa dhaawacay waxa hadda lagu xukumay 2 isku xigta oo xabsi daa'in ama madaxaha ku furta ah 40 sanana waa loo raaciyay aad iyo aad u mahadsantiin asxaabta intaan mar kale kulmi doono nabadgelyo